السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhegeystayaal ku soo dhawaada waa barnaamij gaar ah oo aniga idinku tala galay kacaankii Jaale Maxamed Siyaad Bare waxaan ahay wariye abwaanayaal jecel bal ila dhegeysta heestan waayihii hore iyo Soomaaliya sida ay ahay jirtay iyo maanta sida ay tahay bal eeg sanadkii 1977 Soomaaliya waxa ay dagaal weyn la gashay dalka Itoobiya oo ay anaga daris aan nahay Soomaaliya xilligaas waxa ay ahayd kuwa ugu awood badan caalamka oo idil oo quwadaha waaweyn sida Yurubta Mareykanka Ruushka halkaas dagaal weyn ka dhashay waayihii hore Soomaaliya waxa ay soo gaartay guul weyn balse intaas kadib Soomaaliya waxa ay ku dhacday burbur weyn taasoo Mareykanka ka dambeeyay in uu Soomaaliya burburto sababta Mareykanka ula saftay Soomaaliya Ruushka sabab ula saftay Itoobiya waxa ay ahayd in Soomaaliya lagu burburiyo arrimaheeda sababtoo ah halkaas waxa ka dhashay dawlad weyn oo Soomaaliya meel kasto markaan ka hadlayno arrimaha wadaniyadda iyo Jaale Siyaad Bare sida uu wadanka ugu horeeyay adowyaal uu lahaa dalkeena Soomaaliya Jaale Siyaad Bare waxa uu loogu tilmaamaa qofka ugu adag xagga baraha bulshada ama dhinaca shacabka asiga taageernimo uu ku leeyahay Siyaad Bare markaan ka hadlayno arrimihiisa aad bay u badan tahay haddaba waxaad u jeedaan ciidamadan far badan oo halkan lagu soo daadiyay iyagoo dhoolatus ku sameynayaan daljirka daahsan iyo tarbuunka meesha u dhaxayso iyo taalooyin kale wakaas indhihiina waxaa qabanayaan kumanaan shacab oo halkaas maanta dabaaldeg iyo farxad shacabka Soomaaliyeed ugu tamaashaadayaan waa gumaysigii ugu awood badan oo inta badan Soomaaliya lagu tilmaami jiray in uu hal qof ka tali jiray Soomaaliya waxa la geeyay dawladii Jaale Maxamed Siyaad Bare ayay noqotay dawladda ugu weyn ee geyiga Soomaaliya ka dhalato sanadkii 1977 Soomaaliya waxa ay dagaal weyn la gashay Itoobiya halkaas oo kumanaan ciidan la isku baabi'iyay maanta Soomaaliya waxay haysataa fursad ay ku soo kaban karto oo dawlad xoog noqon karto dadka qaar ilaa hadda ma og sida ay Soomaaliya xilliga oo kale u noqon karto in ay awood yeelato dawladii hore ee Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaa lagu tilmaami jiray in ay yihiin kuwa iyaga dhaxdood wax ka shaqaysan jiray balse hadda ayay rumooday in uu Farmaajo yahay madaxweynaha kaliya oo ugu daacsan geyiga Soomaaliya madaxweynaha hadda kala haayo ayaa asagana laga rabaa in uu wadadii maray Farmaajo iyo Siyaad Bare in uu dalkan ku hogaamiyo maanta waxaad ila daawataan hogaamiyaashii dalkana soo maray wakaas